السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو كورسكينا قيبتا إسلامكا taxanaheena marka taxanahan waxaad ku baran doontaa af suuqiga oo haddii afka qaybta ka barato af suuqiga filmiska iyo wixii la halmaala lagaga hadlo waxa imanaysa in fahankaaga luqadda aad kor u qaadmo halkan waxaynu ugu soo guda galnay shoulda ama should have markaad shoulda iyadoo la leeyahay aad aragto shoulda waxa loo soo gaabiyo should have halkan markaa muxuu ina yiri you should have done something you should have done something marka muxuu ka wadaa you should have waxa ay ahayd done something inaad wax samaysay marka should waa tala bixin waa marka tala la bixinayo ee qofka tala bixin samaynayo waayahay halkan waxaynu ku soo guda galnay islaamkii labaad oo ah would marka waxa loo soo gaabiyay would have marka muxuu leeyahay awra gamba I was ill awra gun but I was ill marka maxaa inta noqonaysaa I would have gone waxay ahayd in aan tago but I was ill laakiin waan xanuunsanayay halku inta ka oran lahaa ayuu intan isku dhijinaya tan oranay awra gun but I was ill waayahay aanu guda kala markaa ka saddexaad halkan waxaanu ugu soo guda galnay islaamkii kiisii saddexaad oo ka saddexaad oo markaa maxaya oo ah gana oo loo soo gaabiyay go into haye marka halkan muxuu ina yiri sentence-kii wuxuu ina yiri I'm gonna go to the shops do you want anything oo markaa uu ka wado I am going to the shops anigu waxaan ku socdaa xagga dukaamada waan soo dukaameysanayaa do you want anything miyaad wax doonaysaa marka halkaas uu yara bedelay uu yiri I'm gonna go to the shops do you want anything inuu ku sii socono markaa halkan waxaan ugu soo guda galnay gara marka muxuu ina leeyahay I gotta go marka gara maxaa loo soo gaabiyay got baa loo soo gaabiyay halkan muxuu ina yiri marka jumladii I have got to go I have got to go waa inaan tago marka halku ka oran lahaa I have got to go waa inaan tago ayuu intaan oo kaliya oranaya I gotta go kaliya bas marka haddaad maqashid I gotta go isagoo qofkiile waa waxaan doonayaa inaan tago hadduu wii ka dhigana wuu awoodi karaa oo de markaa jamac laga hadlayo uu leeyahay we gotta go waa inaanu tagno waaye aynu kusii soconno halkan waxaynu ugu soo guda galnay hafta maxaa loo soo gaabiyey haftu baa loo soo gaabiyey waayahay muxuu yidhi markaa farayskii amaba jumladii oh my god you have to meet him oh my god yaa ilaahi you have to waa inaad meet him waa inaad la kulanto haftu markaa amar bay bixisaa waa inaad sidaa samaysaa weeye waa amar bixin waayahay halkan waxaan ugu soo guda galnay hast maxaa loo soo gaabiyey hastu deetna waa laisku dhajiyo halkii ood ahaydna eeba laga dhigay tiidina waa lagu dhajiyo deetna muxuu ina yidhi jumladda she has to believe him she has to waxay ahayd believe him inay isaga aaminto halkan waxaan ugu soo guda galnay marka waxa loo soo gaabiyey ought marka dhac ahaan baa loogu dhawaaqay tana marka muxuu yidhi you are calling sick marka halkan jumladii caadi maxay noqotay oo aan fislaan hayni you ought to call in sick you ought to waxa weeye call in sick inaad adoo xanuunsanayaad qofka marka la hadasho aad garaacdo call in sick marka horta fislaanku waa sidan faa'iidada ugu weyn ee uu leeyahay fislaanka barashadiisuna wax weeye inaad fahmi karto aflaamta oo kale mararka qaar marka lagu adeegsado oo kale marka horta islaan nidaamkiisa horta waa sidaa hadiiba aad fahantana waxa ku fududaanaysa inaad speaking marka la hadlayo ee listening ka samaynayso aad fahanto marka isku day ardayo bal inaad xoog saarto marka islaamka qaybtiisa koowaad halkaas inay ugu joogaysaa insha Allah qaybta labaadna waynu qaadan doonaa oo waxaynu qaadan doonaa inta aynu ku guda jirno buugeenan inta aynu ku guda jirno levelka advanced-ka ardayga laga dhisay sidoo uu baran lahaa qaabka uu ugu hadlaha sida Americanka okay marka halkaas oo cashirkuna ugu joogaya waan idin salaamayaa
wassalaamu calaykum